wardegdega dowladda federaalka Soomaaliya oo degniin culus u dirtay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo la soo warinayo in saraakiil kala duwan ay dowladda federaalka Soomaaliya xilka ka qaadi doonto soo dhawow qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa inta tabintan aynu ku guda jirnay xaaladda galmudug oo u muuqata inay sii cakirmayso xilli maamulka galmudug ee qoorqoor uu ku dhawaaqay inuusan gabi ahaanba markaasi aqbali doonin doorasho ay garwadeen ka yihiin guddiga doorashooyinka ee waqti xaadirkan markaasi maamulaya doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya hadday tahay booqashadaadii ugu horeysay calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalkan like gare oo sii share gare warbixinta CML dheer ee u gaarto xagaaga magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramaya in degniin culus ay u dirtay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxaana la soo warinayaa in taliska booliska gobolka Banaadir uu soo saaray degniin culus oo ka dhana xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka degniintan waxay tahay in gabi ahaanba xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka aan loo ogolayn in ay magaalada Muqdisho gudaheeda ay ku dhex wataan hub iyo gaadiid ciidan iyaga oo kaliya markaasi loo ogol yahay staff aad u kooban iyo sidoo kale gaadiidka markaasi ay saaran yihiin wax ka badan 3 gaari ma soo marin kartaan ayaa lagu yiri wadooyinka magaalada Muqdisho cid kasta oo jibisa amarkana waxa laga qaadi doonaa tallaabo aad u adag arrinkan ayaa lagu tilmaamayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay wali wada xakameynta iyo sidoo kale in markaasi hoos loo dhigo dhaqdhaqaaqa xubnaha mucaaradka ilaa hadda mucaaradka ayaa jawaab ka bixin tallaabadan iyo sidoo kale go'aankan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 48 saac la soo dhaafay waxa ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah saraakiisha ciidanka gaar ahaan kuwii ka gaabsaday inay ku biiraan weerarkii lagu qaaday toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay guriyihii ay deganaayeen Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana ilaa hadda xilka laga qaaday taliyihii ciidanka booliis militaro ninka lagu magacaabay Jaale waxaana la soo warinayaa in gabi ahaanba Jaale xilkii laga qaaday waqti xaadirkana booskiisa markaasi qof kale lagu bedeli doono dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada diyaarinta qorshayaal xilka xayuubin loogu sameynayo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan guutada 77 ee ilaalada madaxtooyada iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda inuu isku diyaarinayo soo afjaridda saraakiisha guud ahaan markaasi ugu shakisan yahay inay ka hor imaan karaan damiciisa muddo kororsiga isla markaana ay u janjeeraan dhinaca xubnaha mucaaradka wararka kale waxay sheegayaan in taliyihii booliiska ee degmada Daynile gabi ahaanba xilka laga qaaday waqti xaadirkana wax xil ah uusan markaasi haynin waxaana dad badan ay tilmaameen in dhammaan saraakiisha xilalka laga qaaday ay ka soo jeesan doonaan safka mucaaradka oo ay si toos ah markaasi mucaaradka ula safan doonaan culays kalena ay ku noqon doonto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale qorshihiisa muddo kororsiga wahagaad markana dhinacaas iyo galmudug waxa ka soconaya dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo ciidan dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in markaasi ay soo saareen go'aanka madambeysa iyada oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la soo warinayo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in uu maamulka galmudug uu u diray shakhsiyaad ugu horeeyo mahasalaad oo uu yiri waxaad galmudug iga keentaan warcad inta aan markaasi qaadin tallaabooyin ka dhana madaxweyne qoorqoor haddaba maamulka galmudug ee qoorqoor ayaa iyagu goor hore gaashaanka u daruuray doorashada qof iyo codka ah kadib markii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu ka soo muuqday kulan gaar ah oo ay lahaayeen musharax Liibaan Shuluq iyo sidoo kale beesha uu ka soo jeedo waxaana tallaabadaasi ay ku tilmaameen garabka Axmed Qoorqoor in doorashada ninkan gudoomiyaha sheeganaya uu wadaba ay tahay doorasho hal dhinaca isla markaana uu yahay shakhsi si gaar ah ugu ololeynaya dhinacyada ku loolamaya doorashooyinka galmudug